بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan oo wacan meel kasta adduunka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkan kooban aan uga hadli doono ducooyinka la akhriyo ama adkaarta la akhriyo salaada dhexdeeda salaada walaalayaal waa rukniga labaad ee islaamka waana waajib qof kasta oo muslim ah oo qaangaar ah oo caqli leh oo buuxiyay shuruuda ay salaadu ku waajibto waajib ay ku tahay haddaba nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa adeegihii allah subxaanahu wa tacaala wuxuu akhrin jiray adkaar ama ducooyin ayuu akhrin jiray ducada koowaad aan ku bilaabi doono waxay tahay salaada marka la xirto ducada la akhriyo markuu qofka allahu akbar yiraahdo inta uusan faatixada akhrinin ducadu akhrin lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday ducooyin badan laakiin annaga mar walba waxaanu qaadan doonaa ducada tan ugu fudud si ay dadka ugu fududaato nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal wuxuu oran jiray subxaanaka allahumma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha gayruka سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك والدعاء مركز صلاة الله حرته انت أن فاتحة الله باللابين لأخريه أيضا قرأ لنا وحي لسعوتا فيديو جاي لسعوتا هوسكا لسعو مركز دعاء فرشاد آخر سيد فاتحة سو آخر سيد سورة كلا آخر سيد والركوع ديد محاد آخرين يسا nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu rukuuco wuxuu oran jiray subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim 3 jeer ayuu oran jiray haddii aad raacisid wabixamdihina way kuu bannaan tahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam way ka sugnaatay oo aad tirahdid subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim ducadaas markaad akhrisid haddaad keligaa tahay ama imaam alla tukanaysid oo uu dheereeyo waxaa ayadana ka sugnaatay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyin kale oo badan laakiin waxaan kuu sheegayaa ducadan aadka u kooban isla markaana ay kuu fududahay inaad xifdidid ayadoo qoraalana videoga ay la socotaa waxaad oranaysaa subxaanaka allahumma wabixamdika allahuma kfir lii subxaanaka allahumma wabixamdika allahuma kfir lii ayaad oranaysaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaad baryaysaa waadna ku celcelinaysaa intaad ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaysid ilaahay baad hufaysaa ilaahay baad u mahad celinaysaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dembi dhaaf weydiisanaysaa marka salaada walaalayaal waa fursad ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaado marka uu qofka cibaadaysanayo waana xilliga ilaahay subxaanahu watacaala aad xiriirka la leedahay oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaad mataqaanaa la munaajoonaysaa oo la hadlaysaa haddaba ducada badso ilaahay subxaanahu watacaala khayrkaana waafajiyo aniga iyo adigaba marka aad rukuucda kasoo kacdid waxaad oranaysaa samica allahu liman xamidah kadibna waxaad oranaysaa rabbanaa walaka alxamd haddii uu imaamku tujinayo waxaa kuu bannaan imaamku markuu yidhaahdo samica allahu liman xamidah inaad adiga ku ekeysatid rabbanaa walaka alxamd sidoo kale culummada waxay sheegeen sida imaamu nawowi inay fiican tahay qofka tujinaya iyo kan la tujinayo labadaba inay la yimaadaan samica allahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamd maxaa yeelay culummadu way isku khilaafeen sida loo oran lahaa si aad khilaafkaas uga baxdid markuu samica allahu liman xamida yidhaahdo qofkii ku tujinayay adigana dheh samica allahu liman xamida kadibna dheh rabbanaa walaka alxamd ayadoo waxaa jirta dheer rabbanaa walaka alxamdu xamdan kathiiran tayiban mubaarakan fiih ayadana waa la yidhaahdaa haddii aad ku ekeysatidna rabbanaa walaka alxamd wax dhibaataa ma lahan marka aad rukuucda kasoo kacdid oo aad ducadaas akhrisid haddana waxaad u hoobanaysaa sujuudi ayaad u hoobanaysaa marka aad sujuudid waxaad oranaysaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa 3 jeer ayaad oranaysaa tii hore way ka duwan tahay tii hore waxay ahayd subxaana rabbiya alcadiim bay ahayd tan laakiin subxaana rabbiya alaclaa ayaad oranaysaa haddii aad raacisid wabixamdihi sida tii horena wax dhibaataa ma laha nabiga calayhi salaatu wasalaam way ka sugnaatay halkan walaalayaal waa marka uu qofka allah subxaanahu watacaala ugu dhow yahay waa marka la rabo ducada inaad badisid sidii ducadii aan kusoo sheegnay rukuucda oo ahayd subxaanaka allahumma wabixamdika allahuma kfir lii inaad badisid oo akhrisid haddii ay kugu adkaatana way kuu bannaan tahay inaad allah subxaanahu watacaala ku baridid luuqadii markaa kuu fudud oo adiga oo sujuudsan ilaahay subxaanahu watacaala muraadkaada aa weydiisatid af soomaali ayaad ku bari kartaa af ingiriis ayaa ku bari kartaa afkii ilaahay subxaanahu watacaala ku baro oo markaa kuu fudud ayaad ku bari kartaa waxaase fiican inaad mar walba allah subxaanahu watacaala ku baridid ducooyinkii ka sugnaaday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley walaalayaal wax walba oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday allah subxaanahu watacaala ayaa baray maxaa yeelay hawadiisa kamuu hadli jirin ducada lagu dadaalo qofka markuu sujuudsan yahay marka aad kasoo kacdid sujuudda koobaad oo aad ducooyinkii soo akhrisid aan soo sheegnay waxaad akhrinaysaa ducadan inta u dhaxaysa labada fadhi ee sujuudda koobaad iyo sujuudda dhexaad waxaad oranaysaa rabbi ighfir lii
ducooyin kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday way jiraan, laakiin ducadan ayaa ugu fudud uguna gaaban. si ay kugu fududaato baro rabbi ikfirlii. markaa kadib ayaad sujuudaysaa. markaa sujuudidna intii aan horey usoo sheegnay ayaa dib u akhrinaysaa. subxaana rabbiya alaclaa, subxaana rabbiya alaclaa, subxaana rabbiya alaclaa. allah subxaana wa tacaala ayaad baryaysaa, kuna bari sidaan soo sheegnay oo allah subxaana wa tacaala ugu dhowow ducooyinkii ka sugnaaday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam.